soo dhawaada waxyaabo badan baa saa isu kor saaran waxaan rabaa inaan hal iyo laba idinku tuuro warbixin idinka qarsoonna aan idiin sheego sibal idinkuna abdida u noqotaan aad iyo aad qoliyii mucaaradka ahaa ee isku qabiilka ahaa ee isku reerka ahaa ee u shaqeynayay imaaraadka iyo kenyaanka u shaqeynayay labadan maalin oo reernabadii nolol anigu waan mashquulsanaa social media waa qabsadeen magarad social media bay qabsadeen barbaganday ummadii Soomaaliyeed ee wanaagga jacleed ku wareeriyeen laakiin waa laga daba tagi duqbilo waa kan waa ka daba tagi dhakab buu soo siin beentooda la soo qaban runtii iyo xaqiiqdii siday ahayd baa ummadda loo sheegay insha Allah haddii ilaahay reernabadii nolol waanu guulaysanay insha Allah wanaagga dadka wado ayaa guulaysanay dadka xumaatada wada mar walba waa ka guulaysanaynaa kol kasta nin laqdaba wado oo xumaan wado xumaantiisu asagun bay dib ugu noqon asagun bay burburin waxa weeye qolada wanaagga wada ee fiinaanta wado yaa guulaysanayso reernabad iyo nolol waa dad Soomaaliyeed oo waqooyi koonfur iyo meel walba Soomaaliya kamida degan ku midoobay wanaagga ku midoobay fiinaanta ku midoobay dalkooda Soomaaliya inuu hagaaga weeyo wayna guulaysanayaan waxaa liidar inoo ah oo inoo hogaamiyo xafidullah mudane maxamed cabdullaahi farmaajo insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo soo dhawaada reernabad iyo nolol sheergareeya cadaaladda gaarsiiya beej walba iyo meel walba ku tuuro aad iyo aad waxaad ogtihiin labadan maalin inay waxyaabo badan dhacdhaceen aad u fara badan ay dhacdhaceen waxaad arkaysaa nimankii mucaaradka ahaa oo idaacadda wada taaganoo ku dhahaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waa wanaagsan yahay laba maalin kadibna markay sixirkoodii iyo baashoodii ay isku dhufsadaan xisaabtii oo xisaab fiican u soo bixi weyso ya haddana waxay ku leeyihiin ra'iisul wasaare haddana waa xun yahay ma garanaysaa marna idaacadii bay maarayaan wuxuu ku leeyihin ra'iisul wasaarihii waa soo dhaweynaynaa oo xilkii wuxuu ka qaaday mudana Soomaaliyeed oo shaqadiisii wato oo la yiraahdo kulana la yiraahdo iyo xilka ka qaada qabiil bay ku bursanayaan qabiil Soomaali ahaan qabiil uu ka soo jeedo yaa lagu bursanaya ayaguna kuwa ayaga ku reerka ah sida hadda murtidkii Saadaq Jool la orayay wad ogtiin murtidkii Saadaq Jool la orayay markii xilka laga qaaday ee uu dambiga khiyaanada qaran galay qolooyinkan mucaaradka ay isku heebta waxa weeye ra'iisul wasaaraha waa eedeynayeen oo dawladda waa eedeynayeen oo qoryo iyo hub intay qaateen bay shir kale yay galeen aad iyo aad muwaadinka Soomaaliyeedna shalay markuu ra'iisul wasaaraha xil ka qaadayna waa wada niikinayaan intay maryo dabada ku wada xirteen maryo yaroo gabisaare intay dabada ku wada xirteen bay niikinayeen dhakac dheeliyow aad iyo aad marka anigu mucaaradka aad u laba yaabo waa nimo wada qabiilistayaale ma garanaysaa xukunka dawladeed iyo sharciga dawladeed iyo dastuurka dawladeed ayagu inuu qabto ma aaminsana laakiin dadka kale ee Soomaaliyeed ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ayay aaminsan yihiin inuu xukunka qabto insha Allah mar aan hadda hayn yaan arintaas galaynaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaarahayga ee dalka Soomaaliya yaan halkan ka salaamaya kooban ra'iisul wasaare salaan sharaf leh karaamo leh cizi leh yaan horta halkan kaaga ku soo marinayaanoo duqbulo oo ku hadlayo mujtamaca Soomaaliyeed ee wanaagga jecel ee dawladnimada jecel afkooda anoo ku hadlayo yaan bartan ku soo marinayaa ra'iisul wasaare sida wanaagsan ee aad doorashada Soomaaliya u wadid waa soo dhaweynaynaa si wanaagsan oo qurux badan ra'iisul wasaare u soo dhaweynaynaa inaad cadaalad fashid oo doorasho cadaalad ku dheehan tahayna dalka ka dhacdana waanu soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaare si wanaagsan oo qurux badan ra'iisul wasaare waxaan rabaa halkan inaan kuu soo mariyo kolka koobaad inaan halkan kuu soo mariyo inaad cadaaladda ku dhigtid dhakab aad siisid waxaan kaa rabaa shalay
waxaad xilka ka qaaday taliya ku-xigeenkii hay-adda sirdoonka Soomaaliya mudane kulane waxaad xilka uga qaaday nin idaacadda ka hadlay oo yiri waxaa la iga soo celiyay eeraboorka waxaan u socday gado oo doorashadii waxaan u socday buu yiri nin maalimu la yiraahdo waa gudoomiye hore gobolka gado yaa idaacadda ka hadlay oo yiri eeraboorka la iga soo celiyay ra'iisul wasaare mudane maxamed xuseen rooble adigoona baaritaan sax sameeynin guddi arrinta aan u xil saarin baaritaan lagu kalsoonaan karana aadan sameeynin yaa si ma garanaysaa ee dadku aad u qanciso nimanka saaxiibada ah ee dhinacan isku qabiilka ah ee adiguna ka soo jeedid yaa 2 saacadood kadib markuu maalimu idaacadda ka hadlay 2 saacadood kadib yaad ummadii Soomaaliyeed ka yaabis idaacaddii baa timid waxaa tiri ninkii ahaa kulane jiis xilkii baan ka qaaday nin kale oo eeraboorka isteen asagana xilkii baan ka qaaday baa tiri waanu soo dhaweynaynaa annagu dhiimeena sabab xilka looga qaaday ma oranayno waxaanu leenahay nin walba shaqadiisa qabso waayo waa adaa boos u ah inaad magaranaysaa la xisaabtad taa waa midda laakiin ra'iisul wasaare waa inay cadaaladdu shaqaysaa cadaaladdu waa inay shaqaysaa oo lagu kalsoonaadaa waa inay dadko dhan cadaaladdu wada qancisaa weeye waxaan ogahay ra'iisul wasaare oo haddana ummadda u sheegaya inaad berri dhoofayso adigu dhagayso berrita inaad diyaarad rooblow aad fuulaysid hadduu ilaahay yiraahdo diyaaraddaasoo kaa qaadi doonto muqdisho kuuna wadda meesha la yiraahdo ingiriiska dalka UK waanu ku soo dhaweynaynaa amar baana bixinayaa oo hadda waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ee wanaagga jecel ee dawladdanada jecel ee ra'iisul wasaaraha naga jecel markuu ingiriiska yimaado ra'iisul wasaarahayga mudane maxamed xuseen rooble waa inaan fadhiga uga kacnaa waana soo dhaweynaa si qurux badanna u soo dhaweynaa way ra'iisul wasaare xornimadaas ku dhoofaysaa oo aad ingiriis ku tagaysaa oo si wanaagsan ugu tagaysaa maalimuna waxaa tiri si xornimo ku dhoof oo gada ka dago gadu ka dagto si wanaagsan oo qurux badan baa lagu soo dhaweey ra'iisul wasaare berri inta aadan dhoofin oo diyaaradda ingiriiska ku qaadaysa aadan raacin ninkii ahaa maalimu ka dagay waa in berrita aad diyaaradda ka saartaa aadan cadda international airport waa inaad diyaaradda ka saartaa waftiga uu hogaaminaya cabdi cali raage waa inaad cadaaladda taas way dhagayso waa inaad diyaaradda ka saartaa aadan cadda international airport waa inaad cabdi cali raaga ku hubsataa magaalada Kismaayo wad maqlaysaa ra'iisul wasaare shacabka Soomaaliyeed ee kugu hayaan cadaaladdaada wada fiirinaynaa cadaaladdaada sida inoo deeqdo iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan wada daawanaysaa hal qole kaliya laga adkaan maayo hal qole kaliya dastuurka Soomaaliyeed qaban maayo hal reer kaliya waxa weeye xukunkaagu qaban maayo waa inuu dadko dhan wada qabtaa weyn waa in magaalada Garbaharey iyo magaalada Kismaayo waa in loo sinaadaa ra'iisul wasaare hadalkayga aad u dhagayso maalin dhaweeto waad og tahay adoo ku sugan magaalada Kismaayo oo la joogo Axmed Madoobe Kismaayo yaa cabdi cali raage oon ognahay muwaadin Soomaaliyeed inuu yahay muwaadin u dhashay Jubbaland oon ognahay dadkii cidiyaha uga soo baxeen Jubbaland inuu yahay yaa Axmed Madoobaha boqortooyada isu caleema saaray ee jooga Kismaayo adoo jooga ku ixtiraami way oo Kismaayo ka soo celiyo ra'iisul wasaare ceeb bay kugu tahay inaad Garbaharey dadkana u fasaxdo tiraada taga maalimu iyo dadko dhan u taga Kismaayana dadka laga soo celiyo cadaaladdaadu waxay noqonaysaa mid hal bacaad lagu leysay bay noqonaysaa waan ogahay anigu nin xog badan hayaanahay nin wargaleen baanahay waxaan ogahay berrita inaad duulaysid oo ingiriiska u duulaysid oo diyaaradda already lagu keeyay oo aad safar tahay baan ogahay ha bixin safartaas hana duulin safartaas adoon ka dirin Muqdisho cabdi cali raagana aadan ku hubsanin Kismaayo
هكدول مقدسو رئيس الوزراء عدالة دادا تاسا لغو أغانيا عدالة دادا تاسا لغو حقيجريا عدالة دادا وحلو أغانيا رنتا يده إنك اسمايو نمك أن مبدأ أحمد آمن سنين فكر كيس آمن سنين صومالي دا الرجو بلان دورشدن هنغريانيو دمعسن إني ربا إني سشرحان دوريو وإلى أفصح ذاك اسمايو tallaabada aad ka qaadi karta Axmed Madoobe waa inaan ogaanaa hadduu ka soo celiyo muwaadin Soomaaliyeed Kismaayo aragnay tallaabada aad qaaday ee kulana jiis iyo ninkii kale ee boor ka shaqeynaya magaciisa maaye tallaabooyinka aad qaaday waanu arkaynaa aadiya ra'iisul wasaare duqbilo warintaas inta ku soo marnaya ra'iisul wasaare higi baa tahay waan ku jeclahay nin daacad baa tahay nisu wax u wado dadku dhan ay la dhacsan yihiin ayaa tahay mucaarad kaliya inay farxaan anagu doori mayn in Axmed Madoobe diyaaradda dadka ka soo celiyo garbaharayna maalimu hub iyo reexasankii oo dhan ee hub la soo baxaan anagu taas cadaalad waxa weeye wali shaki bay dhogdo aadiya reenabad iyo nolol soo dhawaada sheergareey cadaalad anagu waa guulaysanay banaankaas aanu joognaa haddaanu nahay reenabad iyo nolol waxaanu doonaynaa cid nala tartanto oo doorashada si xor iyo calaala intii miiska cadaan la dhiga saduuqi cadaa la isku kalsoonaado oo dadku leenka soo galaan oo xildhibaanada Soomaaliyeed codeeyaan yaanu doonaynaa madaxweynaha naga mudane Maxamed Abdullaah Farmaajo waanu ku kalsoonahay insha Allah haduu la yiraahdo waxaanu aaminsanahay inuu soo bixi doono noqon doono madaxweynihii mar labaad loo doortay dalka Soomaaliya taasaanu anagu aaminsanahay waana xaqiiq dhabe ra'iisul wasaare cadaaladdaadu waxay ku xiran tahay in Cabdi Cali Raage uu ka degto magaalada Kismaayo inuu ka degto oo uu doorashadiisii ololahiisa campaign-ka ka sameeyo Kismaayo oo si xor Kismaayo uu ku tago aan Axmed Madoobe iyo maleeshiyaadkiisu hub u soo qaadanin taasay cadaaladdaadu horta ku sugan tahay baasha waa ku nasteexeenaya dhageyso marka ra'iisul wasaare arigu waa kula yar kaftamay waxa qas mas'uuliyadaadu way wanaagsan tahay ma sha Allah laakiin dib baan u dhiganayaa hadalkaasi waxa laga yaabaa inuu wuxuu tusuushi shucaac kugu furo gadaal baan u dhiganayaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo dib baan umada kala wadaagi doonaa xaqiiqdu waxay tahay umada dhan way arkaysaa oo way la socotaa waa loo jeedaa adigu waxa weeye intaasaan ku leeyahay ra'iisul wasaare ingiriiska markaa timaadid anigu waan ku imaan lahaa laakiin Mareykanka jooga waan shaqeynaya caruur baan bariis u soo saaranaya magaraysaa bariis u soo saaranaya marka haddii aan budgetna dawladdaada kama qaato oo waan isognahay haddii aan qof camal la'aanahay oo wax ku filan haystana waan ku soo duuli lahaa wallahi airportkan ku taagnaan lahaa sawirkaaga intaan qaato caleema cagaarna qaataan kugu soo dhaweyn lahaa laakiin ra'iisul wasaare Mareykanka ma jooga kuumi ma karo laakiin shacabka reer nabad iyo nolol iyo shacabka Soomaaliyeed ee joogo Ingiriiska waxaanu leenahay berita insha Allah ra'iisul wasaaraha naga soo baxayo waan si wanaagsan oo qurux badan loo soo dhaweeyaa aadiya waana lagu soo dhaweynayaa ra'iisul wasaare si qurux badan bana lagu soo dhaweynayaa aadiya taalkaas kaga tagayaa mucaaradka isku qabiilka dhageysta markii murtidkii ahaa Saadiq John xilka laga qaaday asoo taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir hubbaad la qaadateen waxaad la gasheen shiir kale dhufays baad la qodoteen waad xaarteen waad oyseen waad dhawaaqdeen kulana markii xilka hadda laga qaado oo ka darajo sareeyo oo taliye ku-xigeenka nisa oo xaafadeena ka soo jeedo waan soo dhaweynaynaa bahasha sida loo kala dawladeysan yahay iyo sida loo aaminsan yahay dalkan inay dawlad ka timaado horta ogaada oo barta rag ceeboobay baa tihiin rag aanan isqabanin baa tihiin rag aan dareensaneen meeshay lugta dhigayaan baa tihiin ninka la yiraahdo kulana jiis waa laga qaaday xilka ra'iisul wasaaraha ka qaaday waanu soo dhaweynaynaa xilka waa meerto qof kale oo muwaadin Soomaaliyeed
yaa loo dhiibaya hadda roqobanay idinku laakiin saadaq joon markii xilka laga qaaday weliba khiyaano qaran galay dambi weyn lagu hayo baarlamaanka Soomaaliyeed yiri waan hor istaagaya hubbaad la qaadateen dhufays baad shir kala ka qorateen midda kale basashii ay musharaxiintu hooyar hubanayeen inay kala daadatay oo meel xun maraysa waxaad ku ogaanaysaa oo weliba basasha ay huwadeen ee qabiilaysan inay qabaa'illa weliba ayaga ku reere inay ku xagliyaan ku bahdilaan ay doonayaan yarayadana wax yar idin firiyay dhigayso ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii horeeto ee dalka Soomaaliya ee gabdhihii Soomaaliyeed intuu Muqdisho ka aruuriyay kuna soo xuray kuna soo aruuriyay inay yihiin bikro la guursanin kaga soo aruuriyay Muqdisho ee Sacuudi Carabiya u beecgeeyay waa biimbalda Mareykankii meelana joogno ninka dumarka iyo gabdhaha gadgado ee jirkooda magaraysaa ragga kale ka iibiyo waxa la yiraahdaa biim waa gurfoorway gabdhihii gatay ee la oranayay Xasan Sheekh Maxamuud ee gabdhaha naga intuu qaaday gaday Sacuudiga ka gaday madaxweynihii hore dalka Soomaaliya ee musuqmaasuqa lagu eedeeyay ee aeroboorka xaafadihii ku dhaganaa oo dhan intuu gatay caruurtiisa iyo ilma adeeradiisii ee magaraysaa musuqmaasuq dartii xilka ku waayay ee Xasan Sheekh Maxamuud la oranayay iyo madaxweynihii asaga ka sii horeeyay ee ku meel gaarka ah ee sheekh ahaan jiray wadaadka ahaan jiray ee Sheekh Shariif la oranayay ee naagta gaasha ah gaal cadiinka ah ee Hillary Clinton la oranayay gacanta ku salaamay waa wadaadka ugu horeeyay oo muslim ah oo Soomaali ah oo Soomaali ugu horeeyay asoo wadaade oo cumaamad wato oo ummadda Soomaaliyeed aaminsan tahay Sheekh Shariif loo yaqaano siyaasad darteed iyo hunguri jacayl kursiga uu jecel yahay naag gaal ah oo cadaana gacanta geliyay wada ogtii maro maleynaya naagta Hillary Clinton urray gacanta ku salaam waa wadaadka ugu horeeyay ee wadaadnimadiisii iyo culimanimadiisii u sii daayay siyaasadda Soomaaliya waa ninka Sheekh Shariif aadiya afgudud waa ku salaamaya labada nin waa laba nin oo isku reer weyn isku qabiile oo beesha Abgaal Cusmaan ka soo jeeda weyn midna waa gidoomiyaha madasha waxa la baxay waa ninka la yiraahdo Sheekh Shariif ka kalena madaxweynihii hore Sheekh Shariif Xasan Sheekh Maxamuud Lorrayn waa sagana waa xubnaha ugu weyn gudigaas maalin dhaweeyta shir jaraa'id bay qabteen shir jaraa'id ayay qabteen waxay yiraahdeen annagoo madashii musharaxiintii ah oo mucaaradkii sheeganayno yaa waxay yiraahdeen meesha la yiraahdo balad weyn oo magaalo weyn oo Soomaaliyeed ah oo ilaa iyo milyan iyo bar Soomaali degan tahay waxay yiraahdeen doorasho kama dhici karto amnigeedana waa xun yahay ma garaysa dhageysta waa laba nin oo isku reere midna labadooda waa Abgaal midna waa Wacaysle midna waa harti Abgaal way waa isku reer ma xishoodaan oo qabyaaladana kama xishoodaan waana rag madaxweynayaal soo maray way waa rag horeey Farxaan Qaroolow ka soo baxaya inooda waa wiilka yar ee generaalkay ka soo baxaya ciidamadii maleeshiyaadka ay Mooryaanta magaalada la soo gali jiray way dhageysta sidira intay qabteen bay waxay yiraahdeen magaalada balad weyn oo nimanka gaal jecel iyo xawaale ay degan yihiin dad siyaasad yaqaanana ma aha dad ma garanaysaa deegaankoodii iyo gobolkii Hiiraan oo ugu weynaa gobolada Soomaaliya doorasho lagu qaban kara ma aha ayagii baa beesha hawiye sheeganayo musharaxnimo iyo xil iyo madaxweynimo ugu orday beesha waxay yiraahdeen iyo balad weyn oo ka magaaleysano deegaanadu Xasan ka soo jeedo waa meel abaare ka kalena sidoo kale beerahay ma garanaysaa qashinka ka buufiyaan aadiyan iyo waxay yiraahdeen beeraha xawaadle iyo gugudnabi iyo gaal jecel iyo dadkan degan meesha la yiraahdo Hiiraan dad siyaasad yaqaan ma aha dad aqoon leh ma aha deegaankoodana lagu qaban karo waa rag ayaga isqaraacaya way dhageysto warqadii markay soo saareen oo dadkii ay yaabayeen oo leeyihiin waa nimanka miyaysan niman xishoodo ahayn oo qabyaalada ka xishoodo dhageysta dar Hirshabeelle meesha la yiraahdo waa Jubbada Dhexe iyo Hiiraan oo la isku daray madaxweynihii Koonfur Galbeed waxa qaatay nin ayaga ku heeyb ah Cali Guudlaawe ku qabiil weey kastoon isku mabdaanaay waa ku qabiil labada madaxweynuhu ku qabiil yahay caasimadii Jowhar oo beeshoodi leedahayna magaalo madaxdii Hirshabeelle laga dhigay dhageysta
madaxweynihiina ayaga haysto musharaxiintii iyo mucaaradkii qaylilaysay ee beesha kore ee boqortooyada hawiyana ayagiiba ku dhawaaqayo waa rag cawaana oo meel walba ay ka soo xiranto wey oo aanan magaranaysaa ragga facooda soo intay soo istaagaan siyaasad buugaysan oo qalimaysan la soo istaagi kara ma yaa intay idaacadda yimaadeen waxay yidhahdeen xawaadle iyo gugundhabiya gaaljecel dad aqoon leh ma aha dad isxukumi kara ma aha dad doorasho deegaankooda lagu qaban kara ma aha ee waxaan doonaynaa meesha reerkanaga beeshan annagu ka soo jeednay abgaal cusmaan magaaladeeda jawhar een annagu leenahay waa lagu qabtaa doorasho lagu qabtaa oo annaga mas'uul ka noqonnaa nimanka la yiraahdo xawaadle iyo gaaljecel iyo gugundhabi iyo reew xasan iyo dadkaas oo dhan oo gobolka hiiraan oo gobolka Soomaali ugu weyna dhageysta laba maali kadib markay warbixinta soo saareen nimanka la waa cawaan qabiilistayaal cawaane oo xishoonin oo waliba qabyaalad isu garab taagan way miyaad aragteen mas'uuliyiin kale oo Soomaaliyeed ila qabiil walba oo Soomaaliyeed mas'uul buu leeyahay madaxweynuhu soo maray ra'iisul wasaaru soo maray miyaad aragteen qabaa'ilada kale ee Soomaaliyeed rag ra'iisul wasaarayaal soo maray way wada nooli hadda beesha ma jarteen oo kaleeto ee reer Puntland عمر عبد الرشيد ونوليه رئيس الوزراء هو الصومالي عبد الوالي علي قاس ونوليه ورئيس الوزراء هو الصومالي عبد الوالي حيرنا ونوليه رئيس الوزراء هو الصومالي عبد الوالي أسجر هرداي ونوليه وبيش بالرحانة مياد ركت الرجع قبائل ذا كسر جدا الصوماليين الرئيس الوزراء يمشي قصة الرئيس صومالي صومري أو يسوق إيماني مياد ركت عبد الوالي أحمد يا عبد الوالي كليتو يا عبد الوالي علي قاس يا ما قرر نيك اللي يراد عمر عبد الرشيد أو يسوي يمد أو ميل شرك وذا قليو أو تولر هيرك وذا دقيه انتي تجان صور كو قليو أو قبائل كلا الصوماليات ظلمين يا ميادرك الصومال ما يمدر لكن عوانتا جاهلين تأ أي يقعشدوا أي دوفارك وذا برصدان إن حشورين أي قبيلات دك حشورين أي ما قرر عن جحنج لهين وأساس السكر بتاعين صح يسوق بتاعين يسوق برضيان بلا صور قاعدة اسكو قبيل بانا صور نجا قاعدة قد فيل در قاعدة اسكو قبيل بانا صور نجا قاعدة اسكو قبيل بانا يكلي دقيش يا الله ما لي مركي وربحين تاسو صارين أو قبيل لذا بحد عليه الصوماليين إلهي اللي رياسة كتجي هيران دجن إلهي مسكح لي الصومالية كتجي هيران مدح لي الصوماليين لن هيران كودي بعدين كصعود به عوان ما ذا تستيد مقرر عوان نمذوذا جاهل نمذوذا قبيال نمذوذا أياتوس يا الله ما لكدي مركاريتها صو صارين وضولين حسن إيه شيخ شريف تولير أو ير وتولير دي قبيالات هيرك أي مريش رجعها دب أصعب طبيا عوانتا دقيش تولين أو يريسة أو يندي أو بدأ أكتر كتها الله ولا جاي بيني حكوا قاتب نفس كذا تاريخ ذي علين اللي يراد عدل اللي يراد يا أنتي بابو رأي الديار الرعان كي يرد وزير كورته سكنا عسكاي نجح يدك كذا جري دولتك كذا جري سلو مثل سلوي يا أنتي ديارات رعان وديارات كوسفين يتولير وغير كود اللي دقيش تدي تولير وغير كود اللي وتولين يريسه وغير كود قبيل كود ودقيين يكدكتين إذا عذيبة لو بقولوا دولار سين وحيلين إذا تولد رير كنجان نمد وتولير ده وتولين الرير كيجفاد حسن يا شيخ شريف إليهين يتجان وحيلين تولد النذيبان نمد وانا للسود ويجي والنبض وبرواق بلد وين أو هالمليون يبر صوماليا دقنتي وإلهي حوالة كبيري وإلهي قال جعل كبيري وإلهي قدما كبيري وإلهي ريع عصب كبيري وإلهي الصومالي انتي والله بينتهد ودجي اللي ري بلد وين يكلين وعلى تجي من عوان تقع صدع انت عوان صرا وريا حسرو شيخ شريفو أرد فرماجة إلهي اسكو دي ان اي إذي كما سمين لما ترتبي كرتار رقو مدح بالله عبد الوالي بان نول عبد الوالي علي قاس بان نول عمر عبد الرشيد بان نول عبد الوالي أحمد بان نول رئيس الوزراء هنا كلاتي مقرر سايه هردايا نول انتي يسوي ماذين اياقو الصور قويل اوغليو ميانا ركتين ورميا ميانا ركتين اركي بيسان
ومدحدي الصوماليات ويوجيهن حساسيات ده قبيلكو إن يتاي مت صومالي كلا كحيريشو إن يتاي بيوجين من نيروبي وسكتشوجا من ميراه إنجليز وسكتشوجا من ميراه وسكتشوجا دولة دي ولا سكت على عيري ولا وده غلطك بقرت إذا كنا عوانمو حسروا نكى قبلها قطعوا هير تاد قارتين مرفريستين يا حتى فرماجو وحلكي وريجي وكوريجي روب الكوريجي يا ترى لما ترتمي كرنو وارو كبقينا لما ترتمي كرنو وارو كبقينا لما ترتمي كرنو وارو كبقينا يوسن ترتمين هذا الرج اسكدغا وحريه اسكبار قبيالات ديننا دقبرو انو ددك توش ugu ifiyo oo la arko oo umadu dareento oo umadu aragto daqbirow halkan wuxuu u soo galaba waaba inta qabyaalada aad cadalla ku tagteen ee aad sawirada isaga qaadaysaan tuulada yan ee yiriista ee waxa yarka ee afarta xabad dugantahay aad uga dhigaysaan inay nabad tahay oo balad weyn oo 1 milyan oo qof ay degantayna aad leedihiin doorasho kama dhici karto soo qabyaalad ma rag haddaad tihiin oo qabyaladan taas ka daysaan maanta waxa aad sheegaysaan ay dhabtahay adeer idinko iswato macal dhurwaagi 7 daqiiqo ah ee qabiilistaha noqday ee qabyaalada aaday ee reerka aaday inta diyaarad raacdaan yaa balad weyn ka tagleedoon qadiideen hooy balad weyn waa nabad laakiin qabyaalad ba tuulada reerkiinu degan yahay ku aadisay balad weynna aad warqad ugu soo saarayso reer balad weynow أنا معارف بسّة واحد كجري ماله واحد صومالي نما دامو أو صومالي نما وضدا إنتاو كسرنا نول بديجان كيس أسام مسؤول كأي بلد وين واحد مسؤول كأي دت كدجان حسن مسؤول كمان نغريه وأنا إذين عديين مدحوين ياس اسكو قبيل كأ وإذين عديين وإذين تصن تولد على الله يرى أفر تقف دجانتاي إن يكدك تيري تجان أي قبيلة ذيين أي بلد وين قرب مرين ويدين عديين مقريسة مس هدو داي رجن حكم قبطان وهذا الكي قدوميا دقمة بلد وين وريه رقم ما أنت أيجو باقى منضع وحيدين قوري وايي قبيلات درتين على الله أتجي صح ما مقع بريت مركي حكم قبطان سو إذن قوري مايان إذن دلي مايان رقم ما أنت أيجون حكم هين وحيدين قوري وايي oo maanta balad weyn doorashada ka dhacdo waxay u keenaysaa hoteelada reer balad weyn oo dhan baa la wada dagi dukaamada reer balad weyn oo dhan baa wax laga gadan maqaaxiyaha reer balad weyn oo dhan baa wax laga cuni oo dhaqaale soo gali oo UNT dhaqaalaheedii baa imaan dhaqaalaha balad weyn imaanaya ragga maanta doorasho ahaan idinku diiday ee qabyaalad darteed qalala uga tagay oo wada qabiiliist xasanow soo fiiraan qabiiliista الله وبالله وطلع إن القبيلة استتاي حضرنا قبيلة هذا مال كراه داي تاجنالي وح ونكسر قبيلة هذا وحي نعرف الله ذا أبقى العثمان من أبقى والله ريال وري تركي وضد هذا الشيء ضد ونكسره في عم بالليهين حمان مر لكن دي السياسة ده أديك سوق لسين يوضد إلى جلسة يعني مجرسة بالوقت بقرطوية أبقى الله جرو ومجرسة عن تولده دي الله سوق جراره مجرسة أرضي هذا أبقى له ولد الجعرة لكن حسن إيه شيخ شريف وقبيلة دي استيارة ومبان مضوا في رياض الصيادية ولاد بان دي سلامية وواسك دبروها رئيس الوزراء محمد حسين روبل بريتها الضولن هذا إنجليز أظن عبد علي الراجع كوب سن مجال كسبان عدالة هذا مركزي ددن يلريسا عصبي يلريسا مركزي مجريسا بهاش في راريسا لكن قرب هري وان رجع جوج حكم كان كقاضي لو كسو عام به أحمد مذوبر ومية هذا الرواية بهاش سنة رئيس الوزراء أنا جوا آمن سنة سي عدالة هذا عركة أو شيء قصو لجو آمنه أو مجريسا لان دير النمو وإراد مجريسا كسماية يا أحمد مذوبية ميليشيات كيسو وأنا ضدك أفصحان إن كسمايلته إن شاء الله أنا وروان إما دورا وحنسكت ديرا كسباته مكرين كستول بيري كسماية بياكرتيدو عقار كده لكن دو أنتجي نن وحنا يقول شيء كسماية رجب اللاري تحمله فكرهانو بنانو كسور جدا شخصية دي سواب تجي مرة وعذير كي نعوض النووي لكن معمول كيسيان مسترش كيسة قاعد بنقصر جاي إن شاء الله عدوله إن النقطة دورنا نملير يقف ورك سبايو مجرد ساي تجي دوره أو معارض هذه يعني
taasna halkaasaan kaga tegayaa dhammaantiin waad salaamaya intaana ka bixin yaan deegaanka Soomaali galbeed baa wax yar asna ku tuurtuuraya mudane Mustafa Cagdar inaad yaro waa ku salaamaya anoo duqbilo waa ku garab taaganahay waa ku taageersanahay insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajeynayaa waligay deegaanka dadkanaga ay ka soo jeedaan asal ahaan ma imaanin waana ku imaan doonaa inaan jigjiga soo arko say u taalla iyo qaabkeedii wanaageeda aan imaado oo soo gudbiyaan doonaya inaad yaro intaan imaanin tikreega iyo TPLF iyo shuftadeeda iyo argaxisadeeda sii safee oo sharci waliba ka soo saar waa kugu taageersanahay in biyo inteena ku soo gaarin baa la iska musaabay Soomaali tiriya inaad marka hore aan ka hortagno TPLF intay isan xidanaysan waana kugu dhiirigelinayaa maamulkaagana si wanaagsan baan ula dhacsanahay anigu maalimihii u horeysay lagu keenay yaa Cabdi Ilay iyo Tigreegiisii inuu Tigreey xataa boogeen nin Soomaali baa la xiray yaa dareek Soomaalnimo baqaad taana insha Allah si hoosaan uga wada hadlaynaa waxa weeye Mustafa waan garab taaganahay hakaye ka yeeli mayno taageerayaasha Axmed Madoobe reeqa racan baan u bixi ila iyagu aydiyada qabiilada bixiyaan xawal Axmed Madoobe idaacada la taageen waa sayidkii waa boqorkii bay kulay Mustafa oo ka sayidsan oo ka boqorsan oo Soomaalnimo aaminsan oo deegaankii dulmigii ka dulqaaday iyo gabdhihii naasaha laga jarayay ka dulqaaday yay caayayaan waxyaabaha la yaab weeye TPLF taatikoyinka isticmaalayaan Axmed Madoobe amaanayaan oo anigu hadda dhaliilaya wuxuu leeyahay duqbilo qabiilka tabar waa undaya qabiilku ku kare qaatu qabiil badooni ma nin waxaana hay nasab dhalay oo ku abtirsada nabad iyo nolol baan hayba ku oga tagay garaysa laakiin markaan dib saa u soo doorbi ku wada qabto fiiri reeq racan yaa waxaan arkay ayaa la Xuseen oo mid Mareykan la joog oo Axmed Madoobe isku jifooyay yihiin oo reeq racan aan isla wadana oo Axmed Madoobe haddaad wax ka sheegtid in diintii islaamka aad wax ka sheegtay ka dhigay haddana idaacadi taagan oo afka xumbur ka sii deenayo oo wiilka yar ee Soomaaliyeed ee Ilaahay dalaaqada siiyay ee dulmigii deegaanka haystay ka dulqaaday ee xor ka wada dhigay wuu caayaya nasabadiisii wax ka sheegaya maamulkiisii buu dhaliilayaa waa reeqa racan anigu marka hore uma fiirsan jirin laakiin reeqa racan markaan hadda fiiriyay waxaan arkay inay kaarta fashilantay oo Tigreegu dadka u isticmaali jireen goor hore inay isticmaalayaan adeer Axmed iyo Mustafa Axmed baa karaamo badan baan anigu ninka la yiraahdo Mustafa inuu ka karaamo badan yahay yaan anigu aaminsanahay la idinka yeeli maayo reeqa racanow la idinka ogolaan maayo reeqa racanow inaad Axmed Madoobe ka dhigtaan nin magaraysaa dhala Mustafa aad iswada oysiisaan ciida mudiray waxa baxday aad ka bishaar qaataa la idinka yeeli maayo Mustafa anaga garab taagan waa madaxweyne Soomaaliyeed waanu u dhimanaynaa waanu difaacaynaa wanaagiisaan banaanka keenaynaa oo sheegaynaa Axmed Madoobe inuu dhaliishiisaan sheegaynaa aadiyad inuu Kismaayo kaliya xukuumadda sheegaynaa Mustafa ilaa 10 milyan oo Soomaali ah oo Soomaali galbeed degan iyo xukuumadda aadiyad reeqa racan oo la isku fahan bahash aadiyad insha Allah jigjigan ka degan doona waana tagi doona waliga ma tagin meeshay raabahay raabtiyada ka soo jeedaan Mustafa ay soo dhaweyn doono hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah reeqa racan bahash la isku fahan waaga hore anigu dhinaca ma jir laakiin hadda bahash waa faham waxaan idin arkay xumbur idinku afka sii deereysaan oo magaraysaa waxaad aniga igu haysateen ku sameeyo Mustafa Cagdar oo caayay oo dhaliilaya maamulkiisa oo nafta u keenayo kuwada dhagan Axmed Madoobe hadii laga hadlo in diintii laga baxo duqbilo ogaadeen ma reerkiibu wax ka sheeg Mustafa marka wax ka sheegtaan reerka wada ka sheegtaan ogaada haddaad Mustafa wax ka sheegtaan reerka wax laga sheeg ama nabadgeliya Mustafa anna Axmed Madoobe nabadgeliya haddaad Mustafa reeqa racan oo ku dhigtaan reeqa racan Axmed Madoobe anagana ku dhigayna waa xaqiiqda dhabta والريالتي والله أنا بيرك حركيسا عاد يقول في الستر وان مهلو يتوبان عامصي دوربين وين بنقاطي ويود فيري ريق الرعان ودنا وحركيسا كل جن مصطفى عكر طلابد وقاضي وحمان كشجي طلابد وهر قاضي وحمان بكشجي أنا أحمد مذوب دليله بقريسا حافظه ذا كسوجي أحمد مذوب مركا وحكشجو
شاتي قال السوب بدلنا إياه قبر دهر باب بناك الله قبح حياه يا قري ساي فيقي كسمايا بناك الله قبح حياه شاتي وحال صوح حرنا يا إيكو قرطاي أو جي قريس يا اللي يقول طلعي طلب علي طب لهم حريرك كدري طب لهم حريرك كدري طب لهم حريرك قد جاي طب لهم حرير كدري أنا عاد من عبارو يابا لما كان أنا سياسات ما كان لاي غيرنا وحكوا الشيء معك خلدا ورباش هذا اللي سكوف هذا معنا مركز جدا حافظة كنا قطعنا واستفع هاي والله ما هذا أنا وريق الرعام بونا بابيريا أنا وريق الرعام بونا قد جاي أنا وريق الرعانو أنا اللي سلوي وذق الرعمينا وأنا سلوي وذق الرعمينا عاديات أما باش وحين قريسة سياسة غير كلا كلاسا هذا مصطفى يديك ويا وحكوا هذا الشيء وحكوا هذا الشيء يا مصطفى وريق الرعام يكون دق بين يبربغاندا انجريني عفوفي هذه اللي سكوف الريق الرعام باش مصطفى وقرب تاغنا إن يرو غوريسو تكريغ على 4 كدككلي والله بالله تيب الف اري سو نقرين كوي شلي تيب الف الناس نغا جرتي دوركا كجرنا كوري يا ما تيب الف برري orda هذا مقالي iyo xaadadaan meelaha tib الف degantay aadiya aad bay idin salaamay waaska duqbulowha ra'iisul wasaaraha hal soo dhaweeyo insha Allah haduu ilaahay yiraahdo hal lagu soo dhaweeyo ingiriiska mudane maxaa xuseen rooble laakiin cadaaladaadu waa in ay sinaataan waa in cad cali raage oo nin muwaadin roojo balaana waa inuu ka degtaa meesha la yiraahdo Kismaayo. Salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh.